فاضت بالعبرة عيناه أضناه الحلم وأشقاه بيت الله الحرام يوحكو هراري سنبا يا عماش الجتودم كل جوت ماشى لوغا غوليا waxa weeye in Ilaahay subhanahu wa ta'ala saal isugu dhiibo shayga oo maaragtay hadafka ah oo meesha ugu dambeeyo loo higsanayo waxa weeye Ilaahay adoonnimadiisa in la xaqiijiyo waana nabi Ibrahim alayhi salatu wasalaam simadiisa guulna waa sidaas way hoggaansankaas ma dhicin meelaha kamida oo Ilaahay amar ku siiyay إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد halkii baan ka sii wadaynaa daawadayaasheeda wanaagsan siiradii nabi Ibrahim alayhi salaam ag istaagaynay nabi Ibrahim alayhi salaatu wasalaam oo Ilaahay ku magacaabay inuu ahay kaana ummatan qaanatan lillaah nabigaas Ilaahay oo ummadda lagu magacaabay siiradiisii ayaan ag istaagaynaa runtii waxaan hadalkan ku dul wareegi doonaa aayadan ah ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون runtii nabi Ibrahim alayhi salaam talaabo kasta uu qaadayo waxay ahayd mid ku dhacaysa amarka Ilaahay subhanahu wa ta'ala sida awgeed marna kama labalaynin amarka Ilaahay xataa ilbiriqsi Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayu taabadalkeeda amarkiisa u dhiibtay isagoo aad iyo aad Allah ugu kalsoon subhanahu wa ta'ala sidaas oo kalena huba inuu Ilaahay asaga iyo ahlkiisa midna dayici doonino oo san wax dhiba taabsiin doonin sidaas oo Allah subhanahu wa ta'ala arintiisa ugu dhiibtay waana nabi Ibrahim alayhi salatu wasalaam simadiisa guulna waa sidaas way hoggaansankaas ma dhicin meelaha kamida oo Ilaahay amar ku siiyay oo macnaha ka taraduday ama oo ka labalabay ma aysan dhicin markii la yiri aslim ila Ilaahay subhanahu wa ta'ala intuu quraanka noogu sheegay marka nabi Ibrahim wuxuu leeyahay meeshaas ebarka ah oo aan daaq lahayn oo aan biyaha lahayn balse aan dadbaba joogin markaas markuu reerkiisii oo ka kooban hooyo iyo cunugeedii oo dajiyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuu amarkiisa u dhiibtay asagoo ku kalsoon isla markaasna maaragtay runtii huba inuu ma garanaysaa oo Ilaahay ricaayeyn doono markiibana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuu ducadan ula jeesto ah rabbiyow ilmahayga qayb kamida ayaan dajiyay halkaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu maaragtay wuxuu sababta u dajiyayna waa arinta ugu muhiimsan oo ku sheega aayada rabbana liyuqiimus salaah marka runtii salaada wax kasta laga hormariyay oo bini aadamka jasadkooda u baahnay ama dheefaha adduunyada kamid oo dhan baa laga hormariyay cunadii cabidii maxaa maanta maaragtay amaankii degaankii wax allaaliye wixii maaragtay bini aadamku ay u baahnayaan inay meel degaan oo dhan ayadoo maaragtay Ilaahay uu dib uga weydiin doono hadana salaada ayuu ugu hormariyay kadibna Ilaahay subhanahu wa ta'ala maaragtay wuxuu cilada oo meesha u dajiyaba sida aayadu sheegayso wuxuu ka dhigay rabbana liyuqiimus salaata salaadu marka halkaan ma ahan shaciiro ama cibaado la gudanayo kaliya ma ahan waxa weeye furaha tawxiid saafi ah oo khaalis weeye salaadu waxay halkaan u taagan tahay isdhiibitaan kaamil ah oo Allah amarkiisa la isu dhiibo salaadu waxay halkaan u taagan tahay hoggaansan si dhameystiran Allah subhanahu wa ta'ala loogu hoggaansamo ayay halkaan u taagan tahay ma ahan kaliya salaad shacaa'ir loo istaagayo la gudanayo kaliya ma ahan sidoo kale macnaha waxa weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka uu maaragtay nabi Ibrahim alayhi salaam
ilmihiisa halkan dejinaya oo waxaas u baryaya macnaha wax kastaaho shayga oo maaragtay hadafka ah oo meesha ugu dambeeya loo higsanayo waxa weeye ilaahay addoonnimadiisa in la xaqiijiyo oo ficil kasta iyo qowl kasta inay noqdaan kuwo ilaahay addoonnimadiisa lagu xaqiijinayo taa ayaa waxaa laga hormariyey runtii quudkii iyo wax allaaliyi wixii raaxo ah taasoo macnaheedu tahay dhammaan wasiiladaha iyo tabaha la adeegsado oo dhulka guudkiisa lagu adeegsadahay kulligood maaragtay waa wasiile ma ahan hadafku waxaa weeye allah subxaanahu caza wajalla in loo hoggaansamo oo shay walbo loo istaagayo alla loogu hoggaansamo weeye sidoo kale ilaahay subxaanahu caza wajalla aayaddan maaragtay wuxuu noogu sheegay oo suuratul daariyaat ku jirta wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun oo xadidaysa gaayada ilaahay uu abuuray insaanka iyo makhluuqaadka kale oo dhanba dhammaantood marka sidaa awgeed macnaha waxaa weeye qofku wax kasta oo u istaagayo waa wasiilo laakiin ujeeddada ka dambaysa uu u sacyinaya ama uu higsanaya waxaa weeye allah inuu addoon noqdo subxaanahu caza wajal midda kale maaragtay ilaahay subxaanahu caza wajal markuu arsaaqdan nebi ibraahim u weydiinayo ilmihiisii waxa weeye maaragtay keliya inay ku raaxaystaan oo cunaan keliya maahane bal inay ilaahay subxaanahu caza wajal ugu shukriyaanoo ma garanaysaa maaragtay markii ilaahay uu khayrkaas siiyo oo ilaahay quluubta dadka u soo jeediyo oo ma garanaysaa afidada loo soo jeediyo oo thamaraadka caalamka ka jiro dhan ilaahay u soo jiido inay markaa allah ku shukriyaanoo ilaahay uga mahadiyaan waana midda maanta runtii bayt alxaraam iyo waxa kaaga dhowba aad uga muuqato ducadii nebi ibraahim calayhi salaam oo ka muuqataa halkaa markaa marayna waxaan milicsanaynaa mar kale mashhad cajiib badan oo asaga laftirkiisu ka mida mashaahidda qisada oo runtii waa mashhadka hooyo saabirad ah oo ilaahay subxaanahu caza wajalla dartiisa u sabraysa oo ma garanaysaa maaragta oon uu ku adkaaday oo cunugeedii oo oon iyo baahi tacbaan la aho uu horteeda galgalanayo oo haddana allah subxaanahu caza wajalla ku kalsoon sidii markii uu rasuulku ka tegayaba nebi ibraahim uu ka tegayeyba ay u tiri arrintan ma allah ku faray markaasuu yidhi haa sidaa awgeed allana dayici maayo ayay tiri maaragta marka kalsoonidaas ayay qabtay marka hooyadaas marka waxa weeye maadaama oonkii uu ku batay zaadkii ka dhammaaday hadduu cunto ahaa iyo hadduu cabitaan ahay ilaahay bay amarkeeda u dhiibatay iyaduna markaasay waxay soconaysaa iyadoo waxa walwalkaas jasadkeeda xubin kastoo ka mida ama macnaha waxaa weeye khaliyo kastoo ka mida jirkeeda qalbigeeda dhaqdhaqaaqiisoo dhan arrintaas uu la nool yahay bay maaragtay safa iyo marwo inta u dhaxayda ay soconaysay ayadoo ilaahay baryaysa subxaanahu caza wajalla meeshaan dhibaatadan ay galaan iyo ma'saqan biyo la'aantan iyo cunto la'aantan inuu ilaahay ka badbaadiyo kadibna halkaa iyadoo ku jirta bay sawd maqashay sawdkiina way u dheg raaricisay kadibna wuxuu noqday jibriil calayhi salaam oo maa'i zamzam maaragtay runtii halkaa uga dhambalay runtii qisadan ama aayadahan dhan markii la isku soo arooriyo waxaan ka qaadanaynaa runtii ama nooga soo baxaya macnaha waxa weeye hoggaansan dhammaan nolosha dhinacyadeeda kala duwan oo dhan laga hoggaansamo ilaahay la isaga dhiibo amarka ilaahay subxaanahu caza wajalla lagu socdo rususha oo lagu daydo oo hadday tahay dhinaca caqiidadana tawxiid khaalisa iyo ma garanaysaa maaragtay iimaan macnaha raasikha lala yimaado hadday tahay dhinaca cibaadadana runtii salaada iyo siyaam iyo wax allaaliy wixii qofku addoonnimadiisa uu ku muujinayay lala yimaado hadday tahay akhlaaqna macnaha waxa weeye sidqi iyo ma garanaysaa maaragtay runtii cafaaf lala yimaado hadday tahay mucaamalaad iyo dadka dhexdiisa wax dhex marayana runtii maaragtay cadli iyo insaaf iyo ma garanaysaa maaragtay in lala yimaado maadaama ay arrintu saas tahay waxaa nala gudban runtii oo laga maarmaana inaan maaragtay ku soconno waddadii rususha ilaahay ambiyada ilaahay ay qaadeen amarkooda inaan qaadanno nahyiga ilaahay ka reebtoonno ma garanaysaa maaragtay si noloshannadu ay u noqoto nolol ku midabaysan midabka ilaahay doonayo subxaanahu caza wajalla sibqat allaahi waman axsanu min allaahi sibqa wa naxnu lahu caabiduun taa oo macnaheedu tahay wax kasta oo naga soo fulaya oo annaga naga soo macnaha nolosheenna ka midaho inay noqdaan si ilaahay doonayo oo uu raalli ka yahay oo uu jecel yahay oo ma garanaysaa maaragtay runtii ilaahay subxaanahu caza wajalla noo dhoweynaysa inay noqoto marka guud ahaan
aayadda qaybaheeda kala duwan iyo aayadaha kaloo la macnaha ah iyo qisada mashaahideedo dhan markii la isku soo ururiyo waxa inoo ka soo dharaandhirsamayo nooga soo ifbaxaya macnaha la doonayo oo ah inaan addooman ilaahay oo allah addoonnimada u gooniyo inaan noqono oo hadday tahay maaragtay muctaqadaadkeenna iyo shacaa'irteenna iyo wax kastoon samaynayno inaan noqono dad maaragtay runtii waana runtii macnaha baytullah alxaraam iyo wax ku hareeraysanba iyo acmaasha la gutoo dhan kulligood meesha looga gol leeyahay waxaa weeye in ilaahay subxaanahu caza wajalla saa la isugu dhiibo oo ilaahay saa loogu hoggaansamo sidaa ayaa nafta iyadana faraynaa dhammaan dadka ina daawan doono ama ina dhegaysan doono dhanna waxaan ugu yeeraynaa inay maaragtay runtii ilaahay subxaanahu caza wajalla noloshoodoo dhan u hoggaamiyaan amarkoodoo dhan u dhiibaan ayagoo maaragtay runtii ku kalsoon macnaha waxa weeye hubana inuu ilaahay subxaanahu caza wajalla ciribtooda adduunyimadooda aakhiraba hagaajin doono hada wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu أضناه الحلم وأشقاه شيخ تتمزق مهجته تتندى بالدمع لحاه فأضت بالعبرة عيناه أضناه الحلم وأشقاه شيخ تتمزق مهجته تتندى بالدمع لحاه